بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى إن يرى كوبا يأخذ بيت تعليقين هنا آيضا يا حديث يا أقوال العلماء ينكسب سنيد مده هره وحن كهالليني مشكلتها أمضاها كلها وحاكم ده ضدكو ما اللي جسوا هجاجين اللي جرون وايو أمضوه وحي أمضكو يهين وحي أسكو يهين إنه وضع إلى الشيطان qofkii ka baxayana inay naga joogdhahaan diinteena islaamku oo ilaahay uu soo dejiyay bin aadamka oo dhan inay ku badbaadaan waa inoo taala kitaabka quraanka ahadiista nabiga fiqiga islaamiga taariikhda muslimiinta qofka muslimka waxa laga rabaa wixii dadku ay isku ogaadaan oo heshiis ku noqdaan inuu san uga bixin ama ra'yi ku soo ziyaaday ama dan kale wixii lagu heshiiyo in sideeda looga soo baxo tacliintaasna waxa ayna baray oo ka baranaynaa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ghazwadii uhud markii ay soo dhawaadeen gaaladii yaa dadkii intii isugu yeeray wuxuu maxaan sameeynaa qaar waxay soo jeediyeen dhalinyarada u badnaa aan banaanka ugu baxno aan ka hor tagno odayaalna waxay soo jeediyeen aan magaalada gudaheeda ku sugno markay gudaha soo galaan magaalada dhexdeeda aan kula dagaalno hadalkii waa laga tashaday waxa loo batay in banaanka loo baxo nabiga sallallahu alayhi wasallam marka la tashanay ra'yi ahaan waxa ka muuqanaysay ra'yiga ah in la joogo oo gudaha laga dagaalamo ayaa la qumanaa laakiin meeshan darsi waxa la isbaraa nabigu markaas joogi maaye taariikh buu dadka uga tagayaaye in wax la bartaa la rabaa markuu arkay sida loo badan yahay in banaanka loo baxo ra'yiga uu batay wuu baxay gurigiisu galay darkii dagaalku soo labistay intii uu maqnaa yay dadkii isweydiiyeen waxay yiraahdeen nabiga sida aan ka arkaynay wuxuu jeclaa inaan magaalada iska joogno oo gudaha kula dagaalno banaanka aynan u bixin markuu yimaado aan dhahno rasuulka ilaahay oo iska joog magaalada gudaheeda aan kula dagaalaynaa ficlan sidii ayay sameeyeen markuu u soo baxay oo uu yimid yaa waxay rasuulka ilaahay oo malaha waan ku dadajinay magaalada dhexdeeda aan kula dagaalaynaa iska joog banaanka yeelan u bixin wuxuu ku yiri nabi hadduu mar darkii soo labista dagaalka iskama siibo ilaa ilaahay uu ka kala furaayo asaga iyo cadawga ka soo horjeeda ee ina wadiya waa la baxay taas marka maxaan ka fahmnay tashigu markuu go'aan gaaro oo si lagu heshiiyo tacliintu waxay keenaysaa inta ka horeysa adigu isku day ra'yiga inaad dadka ku qanciso laakiin mar haddii go'aan la gaaro haddii xataa go'aankaas uusan kula qumanayn adiga si aad u ilaaliso wada jirka ummadda meeshii loo batay ee dadku ay raaceen waa in loo hogaansamo haddii ballan marka saa lagu qaato oo muslimiintu ballan ay galaan ama dhexdooda ballantaa isla galeen ama bannaankooda ballan ha la galeene qofka muslimka ah ballan la isku og yahay waa ilaalin ka bixid male waa in la ilaaliyo qur-aanka waxaan soo qaadanay ilaahay oo ina amrahay arrintaas iyada ah oo leh wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum ballantaad gashaan oofiya xataa haddii dad aan muslim ahayn lala galo ilaahay wuxuu yidhi fama istaqaamuu lakum fastaqiimuu lahum inta ay idiin toosan yihiin oo wixii aad ku heshiiseen ay ilaalinayaan muslim baa ballan jebiyaan laydin dhihin u hoggaansama haddaad ka shakidaan inay idin khiyaanayaan oo si hoose ay wax usa samaynayaan oo qodobadii aad ku heshiiseen ay jebinayaan idinkuna khiyaanada dhinaca kale ha kala ciyaarin oo ayagu way khiyaanayaan annaan khiyaanaha dhihine banaanka u dhigo waxa tiraadaan ballantii aan isku ogeyn waad jebinaysaane hadda wixii ka dambeeyay aan isku ogaana inayna ballantii soconayn wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbid ilayhim ala sawa'in inna allaha la yuhibbu al-kha'inin banaanka u soo dhigaalay wixii ilaahay marna raali kama mar jeclaanayo in hostel iska lugooyo diinteenu fiir waa tarbiyo maka markii la joogay yaa waxaa jirta islaam waxaa jirtay la yaqaano oo waxay samaysaa xarkay soohdaa subaxdii intay fariisato say u soo hayso galabtii markii la gaaro intay kala bixiso wixii ay soo soohday ama soo samaysay ayaa waxay leedahay xarigaan ma qurux badna markaas haddana waxay bilaabaysaa marka intii maanta dhan ay soo samaynaysay inay dib u furfurto markaas ay furaysaa ilaa from zero meeshii ay ka keentay ay ku celiso bimacnaa wixii oo dhan bay soo baabi'isay saasa ilaahay wuxuu yiri walaa takuunu kallati naqadat ghazlaha han noqonina muslim hadaad tihiin
haweenaydii maradii baashi ay samaysay dib u furfurtay walaa takunuu kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaafan tattakhiduuna aymaanakum dakhalan baynakum ilahay wuxuu leeyahay yeelina wixii aad ku heshiisaan inaad dib u furfurtaan oo aad saa waxaad u yeelaysaanna waxay tahay an takuuna ummatun hiya arbaa min ummatin bal aayaddan u fiirsada waxay tilmaamaysaa dadaa heshiinaya tusaale heshiisaa la gelayaa saasaan isku ognahay aalilaah qoladii heshiisay qolo kalaa imaanaysa waxay leeyihiin kuwaas maxaad kula heshiisay saas iyo saas miyaa haa intaa in kaaga nacfi badan ama kaaga tiro badan anigaad iga helaysa agtayda ballantaas buri anigana sidaan kuu sheego ila ogolow ma saasaa oo ani maxaa meesha ka samaynaya marka horeba markaasaa waan ka baxay adaana ku raacay halkaasaa innaga waxaa inaga soo galay arrin soomaalida siyaasaddeeda marka la joogo aad u foolxun oo aad iyo aad wax looga xumaadaa oo ah waxay ku leeyihin dan joogto ah ayaa jirta ma ogiye saaxiibtinimo joogto ah ma jirto bimacnaa danta meeshii ay kaa gasho unbaa daba soconay adiga qof meel loogu soo hagaagi oo muslim ah oo sidaa ma yeelna haa haye haddii lagugu soo noqdo meeshii lagugu imaan maayo war maxaa kugu dhacay maxaa igu dhacay wax kaa fiicanaan arkay he awey waxaan isku ogeyn ballanta waawfuu bilcahdida aawey waxaas adaa lagu dhaha u leeyahy ani maxaa ii haysa adiga an takuuna ummatun hiya arbaa min umma inamaa yabluukum allahu bihi ilahay wuu idin imtixaamayaa walayubayinuna lakum yowma alqiyaamati maa kuntum fiihi takhtalifuun waxa aad isku khilaafsantihiinna maalinta qiyaamu ilahay idinku kala saari doonaa walow shaaa allahu lajcalakum ummatan waaxida ilahay hadduu doono kulligiin dad wanaagsan buu idinka dhigi lahaa walaakin yudilu man yashaa wayahdi man yashaa qofkuu rabana wuu hanuunin kuu rabana wuu baadiyeyn walatus'aluna yowma alqiyaamati maa kuntum tacmaluun waxa aad samaynaysaanna waa la idin weydiin doonaa halkaas markaynu joogno ummaddeenna tolow ma iswaraystaan markii shirar la isugu yimaado waxaan aanu ku hadlayno waxaan aynu samaynayno maalinta qiyaamaha in la isweydiin doono ma laga wada hadlaa ilahina wuxuu leeyahy maa yakuunu min najwa alaaثatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akara ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu uma yunabi'uhum yowma alqiyaamati yani ilaahay waxa ay soo sameeyeen waa xisaabtaas ayaan la iloobin marka aayadda kale oo sii cajab badan oo sii socota waxay tahay ilahay wuxuu leeyahay dadka ballanta ka baxa dadka kale markay arkaan maxay dhahayaan bal ad waxaad fiirisaa seed u arkaysaa qof ballan intuu galay ballantii ka baxay dadka agtooda suu ka yahay waa qof inkaaru ku dhacday oon mabda' lahayn oo meel loogu soo hagaaga lahayn oo dadkao dhan ay wada necab yihiin saa markay dhacdo dadka muslimiinta ah diinta ay matalayaan ay sheeganayaan oo islaamka ah waxaa la rabaa dadka aan muslimka ahayn markay mucaamaladooda iyo habdhaqankooda ay arkaan inay ku soo islaamaan haddii laakiin markay arkaan habdhaqanka muslimiinta oo xun oo ballantii aan ilaalinaynin oon isu naxariisanaynin oon heshiinaynin oo hadal xun isdhahaaya oo yacni wax kasta ayna xaaraanba ka ahayn la arko dadka kale maxay dhahayaan war kuwaas diinta ay haystaan wax kama celisa miyaa he diintu way ka celisaaye uu sheegaysaaye laakiin soomaali hore waxay u yidhaahdeen 114 aqaanaa kaa akhrisan maayo ayaa bi'isay qof 114 waxay sheegayaan loo sheegaayo oo laakiin go'aan ku gaaray inuusan dheg jalaq u siinin kaas xaggee la geynayaa kaas wuxuu marka sabab u noqonayaa dadka aan muslimka ahayn markay arkaan habdhaqankiisa inay dhahaan kan meesha uu joogo meel la imaan kara ma aha ama hadduu jiro qof islaamka ku cusub habdhaqankiisa markuu arko inuu gadaal u simbirraxdo oo dib u noqdo markaas ilaahay wuxuu walaa tattakhiduu aymaanakum dakhalan baynakum khiyaano dhexdiina ha ka samaynina oo markaas saa samaysaan maxaa dhacaaya fatazilla qadamun bacda hubuutiha lug ayaa simbirraxanaysa oo dadkii diinta soo geli lahaa ama intay soo galeen ku cusub ayaa simbirraxanaya fatazilla qadamun bacda hubuutiha wataduuqu الsuu'a bimaa sadadtum can sabiili اllah idinkana cadaab ayaad dhaminaysaan ka hor istaagga dadka aad diinta ka hor istaagteen hadda aayaddu ma soo sheegin dad intay meel soo istaageen yidhaahdeen diinta yaan la soo gelin cid tiri ma jirto laakiin maxaa laga fahmay habdhaqankaaga xunaa wuxuu sabab u noqonayaa in diinta la soo geli waayo
hadda inaga waddankeena dhibaato markay nagu dhacday dadkeena Soomaalida ee banaanka aaday bal ruux walba qofku yaqaan hala sheekayso si ay ku nool yihiin dadkii waaweynaa ee ayagoo muslim ah oo diintii bartay xagga tagay way iscelcelin karaan si kastoo ay duruufta ugu adag tahay oo dhinac kastoo ay fiiriyaan waxyaabo munkaraad iyo waxyaabo aan fiicnayn ay ku arkayaan laakiin haddana waa dad diinta ku soo dhaxweynaaday oo Soomaaliya kala tagay oo quraan loo soo dhigay oo saas ah laakiin ilmihi ama ayagoo yar la geeyay ama meesha ku dhashay oo subaxdii intii la kaxeeyo iskool macallin gaala uu joogo loo geeyo oo diin iyo wixii ku saabsan hadii doon dhinaca la iska dhigaa loo sheegin laakiin hab dhaqanka loo dhaqmaayo iyo aan quraanna loo dhigaynin waxba loo sheegin wax kale looga sheekaynaayo sidee buu noqonayaa marka dambe waxay jeclaan lahayn marka dadkaas oo kale markay arkeen ubadkii say ka noqdeen in ay soo laabtaan oo ay wadankii imaadaan laakiin wadankii qori dab leh ayaa lala hortaagaya wadankii dhinac inuu dhaqaaqaba lama ogolo marka dadkaas ay ku soo noqonayaan waxa sabab marka uu noqonayo qof kasta oo wadanka deganaanshihiisa hor istaagan oo wadanka inuu nabad noqdo oo dadku ay isu furmaan oo diintaas la wada barto oo lagu dhaqmo asaga sababtiisa ay la hirgeli laadahay dadka banaanka ku gaaloobaya caruurta la gaalaysiinayo ee inay soo noqdaan la jeclaan lahaa oo si ay u soo noqdaan ayna meesha ka muuqanin soo ma soo galayaan وتذوقوا السوء بما سددتم عن سبيل الله دينتا dadka koor istaagteen koor istaagaasi ma aha mid afka ha soo gelin lama dhahayo laakiin hadii la abuuro waaqic diintu say sheegaysa aan ahayn sidii dadka ay ku soo dhirin lahayn aan ahayn cid kasto oo dhinac ka ah qayb ayay ka tahay marka waa dambi weyn in ballanta laga baxo waa dambi weyn in akhlaaqda la baabi'iyo waa dambi weyn qof in meel loogu soo hagaaga la waayo إلهي وحول مركب ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إلهي بلنتيسا وحقايا الدنيا سيساننا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق وحاد هيسانو دور دمانا يا إلهي أكتيس ما حكو سهرايا مرة قفص على قربا هم يسينوا النقطة إلهي أكتيس محاكو يا الله لكن ما أنت هدين نقطة الدنيا محان هلايا الدنيا وعلى قد منايا قفكي سحن أرادينا سحن أيون انتا وحبا لي جاري مايو waxaan soo qaadanay xadiis oo khudbadii labaad ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa nin u yimid wuxuu ku yiri rasuulka ilaahayow waxaad ii sheegtaa waxaad tusisaa arin hadaan sameeyo ilaahayna uu jeclaanay dadkuna ay jeclaanayaan waxa lagu yiri ilaahay hadaad inuu ku jeclaado adduunyada ka zaahid yani adduunyada aysan hami weyn kugu haynin dadku inay haday ku jeclaadaan rabtidna dadka waxa gacantooda ku jira isii hadheena uga faraha uga qaad inta hadaa laga helo ilaahayna uu ku jeclaanaya dadkuna ay ku jeclaanayaan إمام الشافعي أبياد أوليها أيام سواق هذا أو سوق بجينا وحول الدنيا ذا إمام الشافعي الدنيا ينط المامايا وحول الدنيا ذا ورمية وحول أنا الدنيا ضلوا الدنيا تحول يا النمية ومن يذق يا النمية الدنيا يا النمية أساك جواب وحول أنا فإني طعمتها أنوان النمية الدنيا أنوان النمية وسيق إلي عذبها وعذابها waxay ugu soo martay oo lay keenuu yiri macaankeeda iyo cadaabkeeda bimaana kharaarkeeda iyo macaankeeda adduunka waan saas qof walba saan bay ku soo martay wada dacdii soo raysatay taariikhda adiga mar ay kugu adkeedna waad aragtay mar ay ku ficneedna waad aragtay adduunka xaalkeeda saas yahay haday maanta kugu adag tahay bari fuudaan doontaa haday shalay kugu adkeed maanta inay fuudaa laga yaabaa adduunyadu wuxuu waxaan arkay aniga cadbuha wa cadaabuha macaankeeda iyo cadaabkeeda bay soo martay hadda waxa iga soo bixin ma aha adduunyo wax kale waxa falam araha ma aanan arkin adduunyada illa ghururan wa baatila inay tahay wax lagu kadsoomo oo been ah waxay la mid tahay wuri dhulka korkiisa qoraxdu markay ku dhacdo meel oo banaan ah waxa kor socda amal saas ay adduunyo u egtahay waati ayda ka sarabin بقيعة يحسبه الظمآن ماء markii hada laamiga ka martay qoraxda ay ku dhacdo meel ka fiiriso xaafadan la fiir adiga laamiga madowgiisa iyo qoraxda markay isku dhacaan waxba soconaya waxa u maleysay biyo inay meesha ku jiraan hadaa timaadid laamigi iyo qoraxdii ba isku dhacay wax biyo meesha yaala male adduunyada wuxuu markaa waa saraabkaas waa dhan daban gaale xagay u socotaa waxa ay tahay male tilmaanu ka sii bixuuri wama hiya illa jifatun wuxuu adduunyadu waa bakhti neef bakhti fiir qofka baadilka ku socda
maalmo waxaa laga yaabaa inay wax isugu yira aadaan madax buu noqonayaa xoolo urursanayaa warkiisa la maqlaayaa magacuu yeelanayaa laakiin waxa uu ku socdo sax ma ah qofkaas wuxuu la mid yahay neefku markuu bakhtiyo oo kale neefku markuu bakhtiyo maalinta koowaad iyo maalinka labaad fiiri neef bakhti ah wuu cayilaa wuu bararaa lugtiisa kor u taaganta calooshiisa weynaata bakhtigii waa meeshan bakhtiga ayaa la dhahaa maalmo ka bacdi meel ayuu ka duleeshamaa aariyadii iyo wixii ka baxaaya qalfoof ayuu isku noqonaya wuu baaba'ayaa qofkii marka baadilka ku socday maalmaha yar ay isugu aadan tahay oo waxoogaa hor marmarayaan maadaama dhulka uu ku taagan yahay dhulka uusan ahayn xaq uusan ku soconin waxa ku socda uu baadil u yahay isugu aadanaantaasi ha ku kadsoomina xura adduunyadu wax kale ma illa jiifatun wa bakhti neef bakhti oo kale calayha kilaabun neefkaas bakhtiyey waxaa dhinacyada ka gelaya eeyaal ay kilaabun hammuhunna eeyaashaasi hammigooda fikirkoodu wuxuu yahay ijtidaabuhaa bakhtigan inay kala jiijiitaan neefka haddaan tilmaamaynay ay markay ku soo baxaan koo inta ka soo orda koo inta ka soo orda way kala jiijiidanayaan waxay kala jiijideen ma wax fiican baa marka wax fiican ma waa bakhti waxay kala jiidanayaan hammuhunna ijtidaabuhaa qofka wanaagsan taluusi imaam shaafici wuxuu yidhi fa in tajtanibhaa adigu bakhtigaas la kala jiijiidaayo haddaad isaga fogaato kunta silman liahlihaa aydii kala jiijiidaysay waa ka nabadgeleen haddaad xagga iska marto oodan ku soo leexaninba nina tartiib aygu kuma soo aadaayo laakiin wain tajtadibhaa laakiin haddaa intaa ku soo leexato aad tiraahdo dhinacaan ka jiidaa anigana bakhtigii naasacadka kilaabuhaa aydii ay adiga ma kala fakanaysaan faduubaa linafsin hadda wuxuu yidhi waxaa badbaaday oo naf uulicad la jeclaysiiyey waxaa badbaaday oo laantii jannada ay u sugnaatay naf la jeclaysiiyey qacra beytiha gurigeeda dhexdiisa bakhtii la kala jiijiidanayay faruu isaga qaaday albaabkiisuu ka xirtay waxba kuma falaayo bes wuu nabadgelaayaa hadda bal waddankeena waxaad fiirisaan khilaafaadka ka jira ee qaylada inugu dilay masalaad ha la tukadooy ha la soomo ha la xajiyo maa la isku haystaa maya salaad masaajid walba laga aadaamaa tuulo kastana masaajida ku dhisan maxaa la isku haystaa oo yaalla meesha waxa uu isku haystaa oo kalima ah tii hadda imaam shaafici uu sheegaya anaa jiidanaya koo aa jiidaaya koo aa ka soo jiidaaya koo xagga u jiidaaya waa laga soo celinaa marka waa wasfi daqiiqa in masaajiiday oo adduunkan soo martay oo maanta waxba aan ka haynin marka saas daraaddeed adduunyo xaalkeedu waa saase haddaad rabto inuu ilaahay ku jeclaadana adduunyadaas iyana qiimo kula lahaanina ka shaqayso si xalaal ah inta aad joogtana ilaahay ku caawin dadka dhexdooda wixii ku saabsanna waxa ay haystaan ay damaca uu kaga jira ay kugu jiijiida haddaa u dhaafto way ku nabadgelinayaan marka in sidaas ayay ku saabsanayd marka la isku soo koobana waxay tahay dadka muslimiinta waxaa laga rabaa inay mabaadi' yeeshaan oo dadku markay arkaan ay ku soo islaamaan hadda ummadaha kale waad arteen waa ummada nool hadda maraykanka ugu dambeeyey doorashaa la qabtay odaygii meesha joogay marna kumuuna tashanay inuu baxaayo inuu soo noqon doono ku tashanayo laakiin dadkii ay isugu tegey waxay dhaheen naga raalli ahow markaasuu qayli xataa derbigay soo koreen kooxdiisi adduunkao dhan aa la yaabay oy war maxaa idinku dhacay soo idinkii dadka waaweyn ahaayo dhihi jiray maxaa ilbaxnimadaan hogaaminaynaa waa maxay waxaad samaynaysaan ma kursi ayaa la isku kursi waa doorashaa la galaa waa lagu kala baxaa maxay tahay waxaan marka wahaakada marka arrintani ummadahu waa ummado nool oo wixii way iska celiyaan laakiin shacbigeenna soomaaliyeed mushkila aynugu dhacday dad yar unbaa dadkii isku kor haysta runta iyo xaqiiqadana laisu sheegi maayo mid kasta wuxuu leeyahay wasaani saana jir hadday dadka ay dhihi lahayn bal bannaanka soo fadhiista oo wixii xaqiiqaa dadka u sheega hadda waa laisu sheegaa ficlan oo hadda berigi hore say aan jirta kal maaha hadda wixii dhan waa laisu sheegaya facebookaa lagu qoraayaa waa la hadlaayaa hal arrin unbaa mushkila inugu haysa markii wax la kala saxiixanaayo ama wax la sheegaayo yacni waa wax gaar ah oo dad gaara meel isla gelaaya taasoo kale markay dhacdo waxaa la rabaa ammaano ilaahay in laga cabsado maxaa yeelay ilaahay baa og caliimun bimaa yafcaluun ilaahay baa og laakiin haddaan ilaahay laga cabsanin kiiya waxaan noqonaynaa hadda dhahayno kale 114 haddaan kaamad akhrisanaayo waxaa dadka kala celiya
وأخلاقنا هي إيمانك هي الله كعبسك مركا إن عندك كبر بارينه قف والبو حق كددال إلهي كعبسه وحي بلانه والسكوك يهينا قف والبسوء إلهي كولوك يهي إن عاقوه إلهي قف كي برينا منافقنا ونقنايا دنبنا وكسو قارايا أمرك إلهي وفلين يعني وجبين ونقنايا قف كي كلام مسلم أو هجاكسن أو توصلنا وهفهم وحلا يسكوها يسلو ياي دينتنا نكون دقنه المهنة عن بربارينه أخلاقنا عن وناجينه ومدى عن سكانه من نماء ولا تنمى عن كشقينه قف كسوح كلا هذا إلهي بقى كفرا الدون كان واحد كسر لنا إلهي وجدا اعملوا بما شئتم إنه بما تعملون بصير وحلا وحارتان سمير إلهي حلوائدين جيدا مرك إلهي يا كوين عد كستو الله قدبا يحمان ودا ولا يحيق المكر السيء إلا بآله قف كيشتقال وضنا أسموا ما مرك الدنبه ولق دومي دونها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد